السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر oo maantana halka kan idinka soo baahin doona barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa murtida iyo maahmaahda Soomaalida barashadeeda. Waxaynu in muddo ah ku soo jirnay oo inoo soo socday barashada murtida iyo maahmaahda afka Soomaaliga gaar ahaan maahmaahyada labalayda ah. Waxaynu soo wadnay muddo maahmaahaha saddexlayda ah hadeerna waxa aynu sii wadi doonaa ilaa in doora maahmaahaha labalayda ah. waayahay maahmaahda koobaad ee aan maanta idiin hayaa waxa ay leedahay kow waxa la yidhi laba u daran laba u daran laba u daran laba u daran garoob guunyaa u daran guumays gabadhna guurbaa u daran garoob waa gabadh nin hore soo martay oo aan hadeer nin lahayn ama carruur ha lahaato ama yay lahaanine gabadhu haddii la soo furo oo ay nin hore soo marto afka Soomaaliga waxa loo yaqaanaa gabadhaasi waa garoob ninku marka uu reer hore soo maro ama carruur ha lahaada ama yuu lahaanine ee hadda aanu reer lahayn isagana waxa loo yaqaanaa karinle gabadhu waa garoob ninkuna waa karinle waa nin reer hore soo maray iyo gabadh reer hore soo martay ama guur horeba aynu nidhaahnee markaa waxa la yidhi laba u daran garoob guunyaa u daran gabadh garooba oo guur hore soo martay adduunye jacayl iyo lacag ururis iyo sidii ay qarash u heli lahayd baa iyada u daran garoob guunyaa u daran waa inay qarash heshaa waa inay lacag heshaa waa inay duunyo raadisaa waa in ninka u yimaada ay ku xidhaa matalan shuruudo fara badan tusaale ahaan gabadhna guur baa u daran baa layidhi wiil dooba oo qaan gaadhay oo rabo inuu guur xalaalo guursado dee isaga guurunbaa u daran ama garoob ha ahaato ama gashaanti ha ahaatee hadba tii alla u calfo isaga guur baa u daran wuxuu raadinayaa gabadh uu guursado sidaasaa loo yidhi laba u daran garoob guunyaa u daran gabadhna guur baa u daran waayahay maahmaahda ku xigta ee labaad waxa ay leedahay laba waa la dhaafay waa laga tegay laba hadda cidima isticmaasho laba ku dhaqankooda meel baa la iska dhigay waa laga tallaabsaday cidima danayso cidina isma weydiiso cidi iskuma qabsato cidina kama hadasho waa maxay talow labadaasi wixii la odhan jiray xaal matalan inan baa la caayay nin baa inan caayay nin baa gabadh caayay xaal baa laga qaadi jiray ninkaa golo joog laydhaa sare jooggaa lagu xukumi jiray sideed adiga oo nina gabadh u cayday waxay ahaayeen waxyaabo fara badan oo birimageyday ah baa jiray birimageyday waa meelaha aan la taaban karin ee ay tahay mamnuuca in la taabto in la caayo in la dilo in wax laga sheego in la dhaleeceeyo waa waxyaabaha ay mamnuuca tahay maxaa ka mid a dhaqanka Soomaaliga dumarka in la caayo dumarka in wax xun laga sheego wax fiican mooyee dhaqanka Soomaaliga kuma jirto totally ninka gabadh wax xun ka sheegaa waa nin hooyadii iyo walaashii iyo inantiisa iyo afadiisa wax ka sheegay waayo haweenku sidoodaba waa dhan walba waa inagaga xeeran yihiin way ina dhaleen waynu dhalay waynu la dhalannay way inaga dhasheen way inoo dhaxeen waa gees walba markaa waxaa laga qaadi jiray ninka gabadh caaya xaal baa laga qaadi jiray maanta noloshan casriga ah ee aynu ku jirno social mediaha aad aragteen ee soo baxay wuxuu ka saaray meesha in gabadh la caayay ninkii caayay xaal loo qabsado waayo gabadhii iyadaa social media intay soo fadhiisatay ayay halkaa waxay doonto ka akhriday dabeeta rag baa ka helay meeshii markaasay iyaguna waxay doonaan ku yidhaahdeen dee maxaal baa laga qaadi karaa midna Soomaaliyuu joogaa midna wuxuu joogaa ama Yurub joogaa ama Ameerika joogaa waa run dhulka waxba kuma kala gudbana oo maanta adduunyadu waa one village baa la yidhaha waa tuulo keliya laakiin waxaan ka hadlayaa arrintii la odhan jiray xaal
ayay reer hebel naga galeen maanta way baaba'do social mediaha baabi'iyey social mediahu wuxuu ka saaray meesha in xaal iyo xumays la isu qabsado waxa kaloo ka saaray meesha oo aan imaka cidi xaalayn wixii la odhan jiray xikmadda balu fiirsada murtidii iyo maxaanku dhahaa xikmaddii gabayadii qiimaha lahaa maanta cidi waxaa ma dhegaysato hees yaroo jagac bagaca ayaa la dhegaystaayo waxa la yaalo waxay ka hadlayso iyo micno iyo waxay leedahay nuxur ay leedahay midna aanu jirin oo muusigaas in lagu dhegaysta loo xilanayo marka waxa weeye laba waa la dhaafay xaal in la kala qaato waa la dhaafay imaka waa laga tegey cidina isuma qabsato ninka yidhaahda nin xaal baanu kaa doonaynaana waar orod nagala tag baa lagu idhaahdaa waalida orodoo waalida nagala tag cidina xaal iskama qaadato kow xikmaddiina cidima dhegaysata mana qaadato xikmaddu waxay iskaga duuban tahay meelaha cajaladaha iyo youtubeyada iyo meelahaasay iskaga kaydsanto ay iskaga jirtaayo qofkii u baahda ee muraad ka soo galo ayuunbaa halkaa ka yara dhuuqo oo ka dhegaysta waayahay maahmaahda ku xigtaa waxa ay leedahay labaa u hiiliyey labaa u hiiliyey labaa u hiiliyey nacas qurbaa u hiiliyey naag basari ahna qalabka casriga ah ee wax lagu karsadaa u hiiliyey nacas qurbahaa u hiiliyey ninkii nacaska ahaa ee micidu intaa ka dheerayd ee soomahoydaha ahaa ee xaarkii kamakacaha ahaa ee aanba iyo ta'toona ahayn waxa weeye qurbaha markuu soo galay si kastaba dee ha noqotee waa shaqaystay waa tabcaday ninkii waddankii markuu tago waa ninka dadka ugu sandheer waa ninka dadka ugu sharafta badan waa ninka dadka ugu aqoon-yahasan waa ninka dadka ugu qiimo iyo qaaya badan markaa nacas baa la yidhi qurbaa u hiiliyey qurbaha uu soo galay baa rag badan oo nacasi ahaa nacasnimadii ka biiyo rag ka dhigay dee markaa nacas qurbaa u hiiliyey naagihii ama dumarkii basarida ahaa ee aan cuntada si loo kariyo iyo si wax loo hagaajiyo iyo si guri loo maamulo aan midna aqoon kuwaana waxa u hiiliya qalabka casriga ah shooladaha wax lagu karsado ee elektriga ku shaqaynaya iyo mashiinada dharka lagu maydho kuwa weelka lagu maydho kuwa guryaha lagu nadiifiyo qalabkaa casriga ah ee loo adeegsanaya hawsha guriga ayaa waxa weeye iyagana u fududeeyey in basarinimadii ay ka baxdo hadday basal jarjarayso mashiin yar bay ku ridaysaa u jarjaraya hadday tumayso xawaash bahal yar bay gelinaysaa u shiidaya shaqo kasta oo ay qabanaysaa waxay leedahay makiinad yaroo fudud oo ka mida makiinadaha fudud oo u sahlaysa in ay shaqadii si fudud u qabato taasi waxay ka caawisay gabadhii basarida ahayd inay noqoto gaari dumarkaba dhaaftay oo waxay diyaarisa aan cidiba aanay diyaarin yaa u hiiliyey mashiinada casriga ah iyo qalabka casriga ah teknolojiga makiinadaha fudud baa gabadhaana u hiishay labaa u hiiliyey nacas qurbahaa u hiiliyey gabadh basari ahna waxa u hiiliyey makiinadaha fudud iyo qalabka casriga ah ee loo isticmaalo hawsha guriga maahmaahda ku xigtaa waxa ay leedahay nasiibku waa laba nasiibku sidiisaba waa laba baa la yidhi waa nasiib togan iyo nasiib taban nasiib togan iyo nasiib taban af soomaaliga togan iyo tabani waa maxay waa balaas iyo minus waa positive iyo negative waa saalib iyo muujab marka la leeyahay nasiib tabani waa nasiib wanaagsan waa nasiib wacan waa nasiib qofkaasi ka farxiyey waa nasiib qofkaasi wixii uu doonayey uu ku helay waa nasiib ilaahay qofkaa mustaqbalkiisii iyo wixiisii oo dhan uu hagaajiyey nasiib toganina waa qofkii oo la kulmay nasiibkiisii kala kulmay waxyaabo fara badan oo hagardaamooyina ama dhibaato booyin badan oo ku dhacay adduunyada guudkeeda ayuu la kulmay markaa nasiibkii
waa labadaasoo waa nasiib taban iyo nasiib togan ama mid xun iyo mid fiican mid taban iyo mid togan tusaale waxaynu soo qaadanaynaa laba nin oo isku fil ah oo isku deegaana oo meel ku soo wada koray oo da'da isku qarjafo oo laga yaabo inay habeenna kala weyn yihiin ayaa waxa la yidhi labadii nin markay dhallinyarada ahaayeen way kala fariidsanaayeen labadaa nin way kala fariidsanaayeen midna fariid buu ahaa ka kalena wuxuu iska ahaa bayna bayne ninbaa aad fariid u ahaa labadii nin labadiiba waa guursadeen sanad bay wada guursadeen midba midkii kale u milxiisay xafladihii damaashaadkii iyo arooskii gaafkii markii laga soo baxay ay muddo ka soo wareegtay ayaa ninkii fariidka ahaa waxaa la arkaa had iyo jeer isaga oo madoobaaday isaga oo gubtay isaga oo shidan isagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya isaga oo busaaradda iyo cawaasiifta iyo waxa ka muuqda aad yaabayso waa tii hore loo yidhi war dhafoor buu ku yaallaa ninkii baynaha ahaa ee ay ninkaa saaxiibka ahaayeen ee ay xilliga wada guursadeenna wuxuu soo baxaa oo uu bulshada dhex yimaadaa isagoo nuuraya ifaya shidan sidee u labisan kaalay arag isha aragtaa ay ku doogsanayso kan kale ee fariidka ahaana ishu markay ku dhacdo qof waliba wuu ka naxayaa waa la arkayaa ninkan inay dhibaata haysato dabeetana waxaa la yidhi waa halka ay ka soo baxday ama ay ka timid maahmaahda tidhaahda naagaa rag isdhaafshay ama nasiib baa rag isdhaafshay labadaa nin maxaa isdhaafiyey ninkanina naag fiican buu guursaday oo ilaahay ku beegay kanna naag xun buu ilaahay ku beegay markaasaa waxaa la yidhi naagaa rag isdhaafshay naagaa rag isdhaafshay ninkii gabadha fiican helay hadduu xataa doqon ahaa iyadaa soo dhisaysa dharkaa loo soo kaawiyadaynayaa waa la soo habaynayaa waku kaasaa la leeyahay laguma dhaamay dhaqaaq kii kalena isagoo waxa weeye ay tibxawaash la daba cararayso ayuu guriga ka soo baxaya oo kabna lulaya kabna laalaadinaya oo aanay quraac soo siin oo xal oo dhan ay ku buuqaysay oo indhuhu cas yihiin oo aan seexan waayahay markaa waxaan kusoo gabagabaynayaa labadaa nin nasiibkaa isdhaafiya nasiibku waa kaa waa nasiib xun iyo nasiib fiican mahmaada ugu dambaysaa waxay leedahay aan kusoo gabagabaynayaa bilaheennu waa laba waa tooman iyo tudhan tooman waa bisha soddonka wax dheer yihiin waa bilaha ku dhammaada 31 tooman baa la yidhaa tudhan waa bisha soddon ku dhammaata biluhu waa tooman iyo tudhan biluhu waa tudhan iyo tooman ama soddon bay ku dhammaataa ama 31 bay ku dhammaataa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan dambe